higsigiisu waa inuu gaaro doorka kubadda cagta uu ka gaaray Cristiano Ronaldo. bilowga noloshiisii waxa uu tababar la qaatay Manchester United, waa uu ku fashilmay ilaa ugu dambeyn uu u guuro dalka Brazil, halkaas oo horumarkiisa kubadda cagta uu ka sii watay. Gabriel Martinelli waa shakhsiga martida noogu ah xubinteena nolosha ciyaartoyda oo maalin waliba aan idiin soo gudbino. waxaan si gaar ah u falanqayn doonaa nolosha ciyaartoygan, waxqabadkiisii dalka Brazil, tababarkii uu la qaatay xidigaha waaweyn ee kooxda Manchester iyo sababta ay ugu guuldareysteen inay heshiis la gaaraan kusoo biiristiisii Arsenal, kudayashadiisa Cristiano Ronaldo iyo waxa dadka Brazil uu u yahay xidigan Gabriel Martinelli. daawada haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aadna soo booqanayso, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto channelkeena xulashada ciyaaraha, muuqaalkana like iyo share u sii dhado saaxiibada kale jecel si ay noogu soo biiraan. sidoo kale qaybteena page-ka Xasan iyo Saadiyaad nagala soconaysana, waxaan kaa codsanaynaa inaad like iyo follow na soo dhahdo. mahadsanida. taariikh nololeedka Gabriel Martinelli waxa uu muujinayaa waxyaabo gaar ah oo kaga duwan yahay ciyaartoyda kale. waa wiil yar oo dhalinyaro ah, cishqi badan u hayay kubadda cagta oo bislaa inuu noqdo ciyaartoy kamid ah kuwa ugu fiican dunida. yaraantiisii waxa uu ku indha furtay daawashada Cristiano Ronaldo, waxaana weligiis uu jeclaa qaabkiisa oo kale uu ciyaaro. maanta waa mid kamid ah ciyaartoyda ugu fiican kooxda Arsenal iyo guud ahaan dunida, waxaana uu kasbaday taageerayaal badan. Gabriel Teodoro Martinelli Silva ama Gabriel Martinelli waxa uu dhashay 18 June 2001. qoyska xidigan waxaa loo soo gaabiyaa Silva, waana dadka caan ka ah magaalada São Paulo ee dalka Brazil. aabaha Gabriel Martinelli oo 50 sano jira waa shakhsi beeraley caan ah. yaraantiisiina waxa uu jeclaa ciyaarista kubadda cagta inkastoo heer sare uusan ka gaarin. asalkiisu waxa uu ka soo jeedaa Gurhoos oo ah degmo Brazil ku taala, waana magaalada labaad ee ugu dadka badan gobolka São Paulo ee dalka Brazil. asal ahaan qoyska xidigan waxay ka yimaadeen dalka Talyaaniga. aabihiis João Martinelli waxaa la sheegaa in uu ka soo jeedo Talyaaniga. xidiga badan oo kubadda cagta reer Brazil ayaa asal ahaan ku aftirsada Talyaaniga. Gabriel Martinelli ayaana kamid ah. noloshoodu way hooseysay qoyskan, waxa uu ku soo koray saboolnimo sida qaar kamid ah xidigaha kubadda cagta. waxa uu ka soo jeedaa dad aad sabool u ah, waxaana kamid ah Roberto Firmino iyo Gabriel Jesus, kuwaasi oo isku deegaan ay ka soo baxeen Gabriel Martinelli. qoyska Martinelli waxay deganaayeen mid kamid ah meelaha ugu saboolsan ee lagu yaqaano dadka aanan hantida haysan, waana halka lagu magacaabo Gurhoos. qayb kamid ah magaaladan waxa ay caruurta la kulmaan dhibaatooyin badan, waxaana ku nool koox burcada kuwaasi oo caruurta daroogo u isticmaala. ilmahan yar ee Gabriel Martinelli waalidkiisu aad bay ugu baqayeen inuu nolosha ka dhaco ama uu ku biiro dadkaasi daraagiska isticmaala, laakiin ugu dambeyntii ma aysan suurto gelin inuu helo fursado badan oo banaanada uu ku aado. aabihiis ayaana had iyo jeer ka shaqayn jiray sidii wiilkiisa uu la ciyaarsiin lahaa ciyaartoyda jecel inay kubadda cagta heer ka gaaraan. yaraantiisii waxa uu Fuster kula kulmay xidiga waaweyn oo Filipe Coutinho uu kamid ahaa, halkaasi oo farxad badan uu ka qaaday Gabriel Martinelli. laga bilaabo da'diisa 9 sano jirka waxa uu noqday mid kamid ah ciyaartoyda ugu caansan kooxda Fuster ee Corinthians. intaasi kadib waxa uu u gudbay kooxda Etorobo, halkaasi oo bandhig fiican uu ka sameeyay. sanadkii 2012 waxa uu helay fursadiisii ugu fiicnayd, markaasi oo bandhig goolal uu ku guda jiray, waxaana dalab uu ka helay kooxo badan oo ka dhisan qaaradda Yurub, kuwaasi oo ugu horeysay kooxda kubadda cagta ee Manchester United, Real Madrid iyo Barcelona. dhammaanba kooxaha waaweyn ee Yurub waxaa ka afduubatay saxiixiisa Manchester United oo ku guuleysatay inay ku casuunto tababarkeeda, waxaana Gabriel Martinelli iyo Mason Greenwood ay kamid ahaayeen ciyaartoydii dhalinyarada ee tababarka la qaatay kooxda waaweyn. nasiib darase Manchester United ayaa diiday, inkastoo ay haysatay 4 tijaabo oo xidig ay marsiin kartay, waana iska direen. sawirada qaar ayaa muujinaya Martinelli oo ilmeynaya kana xun inuu la kulmi waayo ciyaartoyda waaweyn ee Manchester sida Paul Pogba,
laakiin wax waliba way isgadiyeen. Martinelli-na maanta waxa uu noqday xidig sare, iska daa Manchester xitaa Real Madrid iyo Barcelona kuma riyoodaan inay xidigan iska fasixi karaan ama si nasiib ay ku heli karaan. Gabriel Martinelli ayaa bilaabay in uu kobac siiyo kubadda cagta isla markaana hami badan uu u yeesho markii uu ku guul daraystay tijaabadiisii Manchester. Isagoo ilmeynaya ayuu ku laabtay kooxda Etoile FC halkaasi oo uu kaga caawiyo kooxdu inay heerka gruubyada quarterfinaliska xitaa ay ka dhaafaan tartanka Copa Libertadores lagu magacaabo. waxqabadkii Martinelli ayaana aad loogu amaanay isagoo boos ka helay xulkii isku diyaarinayay Copa America bishii May 2019. micnaheedu tan wuxuu ahaa inuu ku faraxsanaa kaliya la kulankii xidigihii uu jeclaa Neymar iyo Coutinho kuwaasi oo hogaaminaya qaranka, laakiin xulistiisii ayuu ku waayay inuu boos ka helo qarankii Brazil ee Copa America isku diyaarinayay. sidaas darteed waxa uu sii laba jibaaray xirfadiisii kooxda kubadda cagta ee Etoile FC markaasi oo indhaha Edu oo ahaa agaasimaha farsamada kooxda Arsenal ay ku soo dhaceen. mar uu booqasho ku tagay Edu agaasimaha farsamada Arsenal dalkiisa Brazil, dad ayaa kaga sheekeeyay inuu jiro wiil yar oo leh hibo fiican kaasi oo ku dayda Cristiano Ronaldo. marna Manchester ay ku casuuntay xereedeeda tababarka isla markaana iska soo ceyrisay. Edu ayaa si degdeg u dalbaday kulanka Gabriel Martinelli waxaana ugu dambeyntii uu ka caawiyay inuu soo dhaqaajiyo qaaradda Yurub isagoo ku soo daray kooxda kubadda cagta ee Arsenal. bilowgiisii noloshada waqooyiga London Gabriel Martinelli aad bay u adkayd, faham badan kama haysan ku hadalka luqadda Ingiriiska, mana uusan aqoon ciyaartooy badan oo kooxda koobaad Arsenal. taasi waxay adkaysay riyadiisii ahayd inuu ku ciyaaro heerka ugu sarreeya kubadda cagta. xaqiiqdii waxaa jiray himilo gaar oo xidiga uu lahaa kuwaasi oo caawiyay daayaraantiisii inuu qayb ka noqdo kooxda koobaad ee Arsenal. markii uu la soo qabsaday kooxda Emirates waxaa gaaray dhaawacun kaasi oo muddo ku dhow sanad garoomada uu kaga maqnaa. runtu waxay tahay qofka fiican isma bedelo, waana uu soo laba jibaarmay waxqabadkiisii ilaa maanta uu boos joogtaa ka helo kooxdiisa Arsenal. Gabriel Martinelli haatan waa xidig sare oo Arsenal ay ku tashato, waxaana uu qayb ka yahay xulka qaranka kubadda cagta ee Brazil. hore waxa uu ahaa xidig tababar ula soo qaatay Manchester isagoo ilmeynayna Old Trafford laga soo ceeriyay. maantase waa xidig ku faanaya inuu Emirates diiq ka yahay Manchesterna uu ku burbursan karo. guud ahaan taariikhdan oo aan ku soo qaatay nolosha gaarka ah ee Gabriel Martinelli intaasaan ku gabagabeynayaa. nabadgelyo saaxiibayaal.